maamulka galmudug garabka dhuusmareeb ayaa maanta u tahay maalintii koowaad ee ciidul fidriga magaalooyinka dhuusmareeb cabudwa guraceel iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa maanta u tahay maalintii koowaad ee ciidul fidriga iyada oo deegaanada maamulka galmudug ee garabka dhuusmareeb ay maalin ka dambeeyeen dhammaan gobolada dalka oo shalay u ahayd maalintii koowaad ee ciida munaasabada ciida iyo sidoo kale u dabaaldega ayaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka dhuusmareeb guraceel cabudwa oo ka tirsan dhammaantood gobolka galgaduud magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo ay ku sugan yihiin madaxda sare ee maamulka galmudug ayaa mas'uuliyiinta sare ee maamulkaasi waxa ay salaada kula tugteen gudaha magaalada dhuusmareeb kumanaan shacab ah qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dadka shacabka salaada ciida la tugtay ayaa waxa ay ka hadleen inay maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciida iyagoona sheegay inaysan arkin bisha sidaasin ay maalin ugu dambeeyeen dhammaan gobolada dalka Soomaaliya sidoo kale magaalada Cabudwaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa maanta iyaduna ay u tahay maalintii koowaad ee ciidul fidriga iyadoona si lamid ah si weyn looga dareemayo u dabaaldega maalinta koowaad ee ciidul fidriga guraceel oo kamid ah gobolka galgaduud ayaa sidoo kale iyadana kamid ah meelaha sida weyn maalinta koowaad ee ciidul fidriga loo dabaaldegayo inta badan gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan meelaha ay maamulaan maamulkii hore ahlus sunna wal jamaa ayaa gobolada Soomaaliya intooda badan aan la ciidin iyagoo marka koowaad aan maalinta hore la soomin soonka mudooyinkii dambe baarintaani ahayd mid soo taagnayd iyadoona inta badan madaxda iyo culimada gobolada dhexe ay sheegaan inaysan arkin bisha Ramadaan ama bisha Shawaal sidaas awgeedan aysan la soomi karin dadka ama aysan maalinta koowaad ciida la dabaaldegi karin shacab aad u tiro badan ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Dhuusmareeb Guraceel iyo Cabudwaq kuwaas oo dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidul fidriga dowladda Soomaaliya ayaa maalinta munaasabada ciida awgeed soo bandhigtay ciidamo xoogan oo looga talagalay difaacidda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la ciiday ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed oo tababar ugu socda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kuwaas oo looga talagalay inay difaacaan dalka Soomaaliya in ka difaacaan cadow kasta oo wadanka ku soo duula madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa ciidamada khudbad u jeeday waxa uu kala hadlay isla markaana sina dhiirigelin xoogan uu ku siiyay inay niyadooda iyo qalbigooda naftooda dhammaan ay u hubeeyaan wadankooda taasina uu ku sheegay inay tahay mid looga baahan yahay qof kasta oo muwaadin ah waxa uu tilmaamay in dal kasta waxyaabaha lagu ciiseeyo ama lagu ixtiraamo ay ka mid yihiin ciidamo iyo sidoo kale in dalku ahaado mid ku dhisan ciidan dhinac walba ka dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa inta uu khudbadiisa jeedinayay waxa uu ciidamadii la hadlay u weydiiyay su'aal ahayd inay diyaar u yihiin inay u dhintaan dalkooda waxa ayna sheegeen dhamaantooda in ciidamadaasi ay ka go'an tahay difaacidda dalka madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan lahayn cadow gudaha oo kaliya balse Soomaaliya haatan la daala dhacayso cadow fara badan oo dalka dibadiisa kaga soo duulay dal walba waxa lagu sharfaa oo lagu soo dhaweeyaa lagu karaameeyaa inta wiilal idinkoo kala ah oo diyaar u ah inay u dhintaan taas waa ogtiin Soomaaliya dalku hadduusan ciidan lahayn madaxweynuhu sharaf ma laha dalkana sharaf ma laha laakiin dalka hadduu leeyahay xoog idinkoo kala ah oo diyaar ah inay naftooda u huraan oo ay u dhintaan dalkaasi waa karaamaysan yahay magac buu adduunku leeyahay qiimo gaar uu leeyahay idinkaa la rabaa marka inaad soo celisaan sharafkaas iyo qiimaha Soomaaliya ee hore u lahayd inaad idinka soo celisaan waxaad lahaan doontaan dhalinyarada kulligiin wada tihiin rag badan oo halkan idin ka mid ah inay hoggaanka ciidanka qabtaan taliyaasha qeybaha ee kala duwan yaa halkan fadhiya oo idinku jira ilaahay ha idinka dhigo kuwii u shaqeeya dalkooda ilaahay ha idinka dhigo kuwii dalkooda naftooda ugu hibeeya ilaahay ha idinka dhigo hoggaankii dalkan u lahaan lahaa ilaahay ha idinka dhigo waxay ku xiran tahay marka himada iyo niyadda leedahay ku xiran tahay marka waxa naga wada maqan oo wada leenahay waa dalkeenna wey haddaynan dalkan u istaagin difaaciisa haddaynan dalkan u istaagin hadda waxa weeye ma noqonaysaan dadkaan sheegayo 1 2 3 macnaheedu waxa weeye waxaa ugu muhiimsan oo ugu wanaagsan qofka isagoo ilaahay hortiisa u difaacay dalkiisa oo dadkiisa difaacanaya inuu dhinto ilaa noolaan meena weligeen marka dhimashadu waa wax ilaahay xaggiisa ka qoran waxa anaga ognahay maaha waqtigeeda leedahay qof walba waxa weeye laakiin lagu kala duwan yahay qof walba waxa weeye siduu u noolaanayo inay noqoto si sharaf leh inuu goosto go'aankaas leeyahay hadduu dhimanaayana si sharaf leh inuu dhinto
go'aankeedana waa leeyahay iyada naftigeeda halkan waxaa iga muuqda dhalinyaro firfircoon oo xoog leh laakiin niyaddooda wanaagsan oo halkan u yimid ma aha shaqo inay naftooda u hibeeyaan dalkooda difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba soo saas maaha saas ballan ilaahay ma noo tahay dalkan annagaa iska leh inaan cadow ka ceshanno hadduu yahay cadow dibadeed iyo cadow gudaha labadaba diyaar buu tihiin dalkan iyaa iska leh waa u dhimanaysaa soo maaha dhiiggiina waa u qubaysaa waa mahadsantihiin muddooyinkii ugu dambeeyeyba dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waday dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona arrintaasi walaac hoggan ay ka muujisay dowladda Kenya oo daris la ah wadankeena waxaana Kenya ay sheegtay in ay ka feejigan tahay dhaqdhaqaaqyada ciidanka danab ee ka howlgala gudaha wadanka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay iscafiyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe ayaa waxa uu ka hadlayaa faa'iidooyinka ku jira in la iscafiyo waxa uuna sheegay in shacabka Soomaaliyeed haddii dhammaantood ay iscafiyaan dalka Soomaaliya uu noqon karo mid nabad ah isla markaasina la jaan qaada dalalka Afrika ee xasiloon madaxweyne Axmed Madoowe ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay isku naxariistaan munaasabada Ciidul Fidriga awgeed dhammaantoodna is cafiyaan qof walbana uu cafiyo qofka kale ee walaalkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed dhammaantooda maalinta labaad ee Ciidul Fidriga uu hambaliyay isagoo u rajayay khayr bashbash iyo barwaaqo ay ku gaaraan ciidan ciideeda marka waxaan aad ugu farayaa dadka aan kula dardaarmayaa in la is cafiyo walaalnimada laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo maalinta la weyneeyo dadka masaakiinta ah wax la siiyo la bixiyo zakaatul fidriga hadduu qofku bixin waayo oo maanta uu bixin waayo gobolka hadda intuu dhacay iyo inta ka dambe ilaa salaada inta ka horeysa sadaqa oo sadaqaad ka mid umay noqonaysaa fadiiladii ay lahayd zakaatul fidriga way ka buraysaa culimadaa ka hadashay qof kasta oo muslima addoon iyo xor ilmo yar iyo ku weyn iyo mid walba way ku waajibaysaa waa laga bixinayaa qof kastoo mas-uul ah ka bixinaya cidduu mas-uulka ka yahay marka taana waxay la tahay dadkana waxaadan adigu cunayn ha siininin raashinka aad adigu cunto ee adiga quutulqaalibka ku eed adigu jeceshaad naftaada la rabto sii kaa dadka masaakiinta ahna hala iscafiyo ilaahay Soomaaliya oo sidan ka sii fiican oo aad u fiican oo barwaaqaysan hana tuso ilaahay waxaan ka barayaa dadka qulubtooda inuu isu soo jeediyo dhammaan gobolada dalka ayaa si weyn looga dabaaldegaya maalinta labaad ee Ciidul Fidriga siyaasiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taageero xoogan u muujiyay dowladda Kenya oo haatan dhibaato ka wada gudaha Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya haatan ah siyaasi si weyn ugu dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa uu khudbad u muuqatay mid uu ku difaacayo dowladda Kenya uu ku sheegay in qadiyad kasta dalalka dariska looga baahan yahay in si hoos loo haliyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dalalka dariska ay yihiin kuwa wada shaqeyn iyo xiriir wanaagsan la leh Soomaaliya sidaas awgeedana cid kasta oo khilaaf soo dhaxgala loo baahan yahay in si degan loo xaliyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya iyo xasiloonida dalalka dariska ka jira taasina uu ku tilmaamay in sanad kasta Soomaaliya dhibaatadeedu ay sii socoto kuwa dariskana ay ku naaloodaan nabad iyo xasilooni taasina uu ku sheegay mid gobol kasta oo geeska ka tirsan dhibaato ku ah dariskeenna annagu isma dooran annaguna ma dooran inay daris noo noqdaan ayaguna ma dooran inay daris u noqono waxa naga dhaxeeya waxay tahay macaamil wanaagsan inaan lahaan haddii walaalaha qaarkood aan dariska nahay ay hal qadiyad naga dhaxayso oo hal arrin aan isku hayno waxa wanaagsan oo aanan isku hayn oo daris wanaagga iyo saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta ku habboon oo naga dhaxeeyo ayaa ka badan qadiyad aan isku hayno qadiyadaan isku hayno si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin ku jirto inaan u xallisano ayaana laga rabaa waxaana laga rabaa inaan sida caalamka ilbaxnimada leh oo tilmaamayo inaan u dhaqanaana laga rabaa taasina waa sida aan leeyahay waa qarniga 21aad sida ugu fiican ee dirisnimada iyo wanaagga iyo walaalnimada loogu wada dhaqmo waxaan leeyahay wax badan oo wanaaga oo wada qabsan karno horena usoo wada qabsanay aan naga dhaxeeyo walaalaha dariska ah dowladaha dariska nala ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo gobolkan geeska Afrika la yiraahdo meelna inuu nabad ahaado meelna colaad ahaatahay waa suurtagali weyd waa soo aragnay haddii dhibka Soomaaliya ka jirahay oo Kenya khusaynayo oo Ethiopia uu khusaynayo oo Djibouti uu khusaynayo oo cidii kale ku sii degan uu khusaynayo waxa kaliya ee nagu habboon waxay tahay in aan ka wada shaqeyno dhammaanteen inaan dhib ahaan
dhib la'aan aan ahaano rijinkeenu rijin nabadeed inuu noqdo si aan rijimada kale ee qaaradda Afrika ku yaallo aan ula tartanno xagga dhaqaalaha xagga cilmiga xagga aqoonta marka fursadaha gobolkan uu haystahay waa badan yihiin waxaan leeyahay mar kale sida aan dadka Soomaaliyeed taladeena aan ku meel marna aan u lahay gobolkan taladiisa ku meel maran leenahay waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dadka ku dhibaataysan deegaanadeeda ay wax u qaban doonto kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Shariif Sheekh Kunamay warbaahinta la hadlay maalinta labaad ciid awgeed waxa uu sheegay in looga baahan yahay dhammaan dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya inay caawiyaan dadka kale aan awoodin inay ciidaan ama ay farxad ciid ay la qaybsadaan caruurtooda uu sheegay inay haysanin waxyaabihii ay ku ciidi lahaayeen Shariif Sheekh Kunamay ayaa tilmaamay in dhammaan qof kasta looga baahan yahay in hal qof uu wax u iibiyo ama caruurta masaakiinta aan waxba haysanin ay ka farxiyaan taasina uu ku sheegay mid maanta looga baahan yahay shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee maanta Ilaahay waxa waaye uu awood u siiyay inay ciidaan ciidooda inay farxad kula ciidaan reerooda insha Allah nagu baaqayaa inta walaalahooda ah ee aan maanta awood aan lahayn insha Allah in la isu gargaaro in ayagana laga faraxsiiyo dadka masaakiinta ah sida anagu aan u faraxsanahay sida anaga aan u ciidan insha Allah ayagana inay noola ciidaan teeda kale waxaan Ilaahay mar labaad ka baryayaa in ummadan islaamka ah insha Allah dhibka yar ku jiraan Ilaahay inuu ka saaro Ilaahay dhibka inuu ka saaro adduunka waa imtixaan waaye امتحان كان إلهي لنا قد يكون كوكو ليستو كوي عبادة صوبان إلهي إن شاء الله عمرك إنتو نقول بنا كل ما يصير شعبي هو حاول كل دردار ما ولا لا تينين أتكعما إن الأبصده مناسبة عيد الدرت هذا قلبك إن السكفرة شعبك قلبك إن السكفرة الله ولا لا يستو كعما الله أبصده سوى الجيرة دل كان هو مركز الله وشقيه وأنا سلامتي دمانتي السلام عليكم madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed ee la xiriirta in ay u gurmadaan dadka kale aan awoodin inay ciidaan Yaxya Ciise Xuseen ayaa ka warramaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu faray inay caawiyaan walaalahooda Soomaaliyeed kuwaas oo aan ka qayb galaynin damaashaadka maalmaha ciid ee aan ku guda jirno madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka intiisa kale ugu baaqay in uu qof walba taakuleeyo kan kale ee aan haysanin damaashaadka maalmaha ciida si uu uga qayb galo farxadda maalmaha ciida madaxweyne Farmaajo ayaa fariintiisa ku aadiyay munaasabada ciida oo uu sheegay in ay qayb ka tahay in shacabka lagu baraarujiyo si ay isku caawiyaan munaasabadan barakeysan ee Ciid Fitriga waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo muwaadin kastaba inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan laga wada shaqeeyo danta guud oo ugu horeeyo amniga sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ilaalino midnimada iyo wadajirkeena kuwaas oo dhammaantood tiir dhexaad u ah waajibaadka ayna farayso diinteena suuban ee islaamka waxaan idinka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsano oo aan ka shaqeyno sidii aan uga rumayn lahayn himaladeena iyo higsigeena ku aadan dib u dhiska dalkeena iyo dawladdeena ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciideeda nagu gaarsiiyo dalkeena